I'm sorry. Nasiibka hadduu uu kaa helinayo meel yar ayaad ku kufaysaa. Subax wanaagsan saaxiib sida u dhantihiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Fadlan haddii aad daawashada ku channel subscribe noo saar. Waxaan rabaa shaxdiina labaad ee xalay taasoo shalay galabtii aan soo geliyay page-keena oona lacag $50 ayaa saarneed. Shaxdiina labaad ayaana shalay maadaama shalay ciyaaro badan ay jireen. Waxaan rabaa inaan ku tuso ama aad ku qanacdo nasiibka xilliyada qaar inuu yahay wax jira. Waxaanan ku qornayn inaad heli karin xilli walban waa idin dhahaa. Waxay ka koobneed 15 kooxood. 15 kooxood ayaan shalay soo xulay. Shaxdii labaad ayay ahayd oodiskan wuxuu ahaa $50. Bal fiiri meeshaan ku kufnay Napoli iyo Bologna oo aan dhahan Napoli gabi ahaan ciyaartan way badanaysaa iyo Real Madrid iyo Barcelona oo aan dhahan Real Madrid waa qiyaasay inay badi karto laakiin maadaama oodiskan uu badan yahay weliba oodiska intaas wuu kasii badnaa anagaan macnaa ciyaar soo galay anaa soo daahimaanay Real Madrid waxaan saaran double chance meesha kaliya aan ku kufno waa Liverpool iyo Man City oo aan double chance taa ma aha way badanaysaa maahan City iyo Liverpool markii loo fiirsho Bruni City xoog badan laakiin nasiibka markuu ka heelinayo meel kasta uu kula gali karaa City waxaa noo saaran double chance oo 2x kaas waxaa waaye double chance oo inay badi karto in bridge ay gali karto fiiri Halas iyo Verona sida u jeedaan Milan waxaa noo saaran iyadana double chance maadaama Milan kulamada awiga ay ku fiicneen afar saac gool labaad ay ka dhalisay kooxdaani Union Berlin iyo Borussia Dortmund 16 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo inta meelaas u dhaxaysa bijaal Union Berlin laba gool ayay kala hormartay inkastoo Borussia Dortmund ay awood badneed 75 pole position ay haysatay balse nasiibka ayaa saacidi waayadana labada gool aan saadaalin kaliya ayaa meeshan ka timid oo German Bundesliga qayb ka ahaa Bayern Munich oo shalay ku sheegnay iyo Freiburg inay Bayern Munich ay ka badi karto kooxdan kale Bayern Munich oo jeed 5 gool ay u dhiibtay maxaa dhigeeda Freiburg sidoo kale Espanyol iyo kooxdan kale aan ku sheegnay Espanyol inay guud ahaan ciyaartaani bridge ama badis ay gali karto Paris Germany iyo Olympique de Marseille oo run ahaantii aan iidan ku sheegnay in Paris ay ciyaartaani badi karto 1-0 ayaan ku badatay gool Mbappe uu soo dhigay Neymar oo ka dhaliyay oo waliba kulan aad u adag ayuu ahaa xalay Istanbul BFK iyo kooxdan kaleetona waxaan ku sheegnay Istanbul BFK inay bridge gali karto ama badi karto Real Betis iyo UD Armenia oo horyaalka u soo dallacday sanadkan u soo dallacday oo Spanish League wada ciyaaraydan Real Betis ayaa waxaan ku sheegnay guud ahaan ay ciyaartaan ay badi karto sida u jeedaan sidoo kaleeto hadda xasuusto meeshan qofkii daawanay Real Madrid iyo Barcelona waxaan sidoo kale Spanish League waxaan ku sheegnay inay 3 koorno ee ka imaan karto fact hore ee ciyaarta ama kambi hore ama half kambi hore inay ka imaan karto hadda daawanaysay kambido 44 daqiiqo markay marisay Barcelona ay heshay kambida labaad daqiiqadan lagu daray marka nasiibka halkaas ayuu naga sii saaciday oo sidaas ay 3 ku timid Cologne iyo Augsburg ayaan sidoo kaleeto inaan Cologne aan ku saadaalinay ee bridge ee badis ay gali karto because ciyaartan xitaa ciyaar aad u adag ahayd oo Cologne ay gool laga hormaray way bridges mar kale way dhalisay waa laga sii bridgeey kadib haddana ku sii dartay sidoo kale Lazio iyo Udinese Calcio waxaan ku sheegnay Lazio in ciyaartan badi karto ee bridge ay heli karto sidoo kale Southampton iyo West Ham ciyaartan guud ahaan waxaan ku sheegnay inay Southampton oo gurigeeda joogta inkastoo West Ham ay ka adag tahay inay badi karto ama bridge heli Southampton ayaa ciyaartaani marka horeeto gool ka hormartay waa laga bareejiyay balse ay ku dhamaatay marka ogaada asxaabtay qaaliga ah waxaad ogaataan nasiibka markasto inuu meesha uu kula gali karo marka aad baa ma inta saaro inaa idin wadaago